dal xoreeye dawlad dhisay noo daneeye waxay oraah dawacsani doqoni kuugu haystaba maantana ma adis baad ka dejisay doontii ilaa dambeeye ma gaaro doqonna calaf ma leh kolkaan dacalka haynay idinkaa noo dayriyey dib u xoreyntii waa taasi dildiloonto Itoobiya ka degtay inka la leeyahay arcas adeer baasho waa kugu dheeraatay waxaan ku leeyahay soo afjar ama cabdimadoow hoostiisa ku rafo gariya xaniya qabso ama tolka waa tolkaaga iyo gogol u dhig oo haddii lagu yiraahdo bax iska soo baxo alaabtaada soo qaaday kabahaaga haddii ninka kale laga qabtana degmada waa degmadaada iska joog bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada qiyaaray barnaamijka waxaan ku falanqeynaynaa 3 qodob qodobka koowaad ee ugu horeeya wuxuu yahay lafta gareen baashu waxay socoto oo ay socotaba haatan waxay salka dhigatay Itoobiya Ingiriis ciidan noo tababaraya iyo UK boqortooyo iyo ka bax waxaas waxay salka dhigatay Itoobiya habeenkii la soo xiray shirkii isaga loogu sameeyay xilgaarsiinta markii la soo afjarayay wuxuu meesha ku sheegay hal sano oo aan al-shabaab iska kicinayno aan isku dul qaadano ya al-shabaab intaas oo qaraxyo sameeya waa u dul qaadanaa hal sano oo aan al-shabaab iska kicinayno aan isku dul qaadano saas uu leeyahay 4 sano ee aad meesha joogtay shabaab dalka ma ka maqnaayeen ma joogin miya ya halkay jireen shabaab halkay jireen 4 sano aad meesha joogtay shabaab halkay jireen waa kula joogeen degmayaashii iyo tuulooyinkii ciidamadu ay deganaayeen markii xilkaas lagu dhiibay baa laga soo baxay waliba oo shabaab uu maamulaa hadda marka adeer halkan sana canshuurtan qaadanana dheh ahna dhihin shabaab xoreyna hadda wax xoreynaysa 4 sano meesha soo joogtay kan hal xab uu ku soo kordhinaya malaha tan kale September waxaa ka dhiman 5 bilood wax allaaliya waxa qabsan karto hadda qabso 5 bilood oo kaliya kaaga hartay September isku diyaari wasaaradda arrimaha gudaha inay ku kaawayso hadda qiiq tiraada inay ku kaawayso isku diyaare ama Itoobiya gacanta u gali ama futajiir gali barta galiso waa kala soo baxayna adeer meesha aad doontaba geey maamulka dhan hadda rabta kalinkii lixaad ka dhig barta geesan ka soo qabsanaynaa meeshuu joogay iyo meel ka sareysan anaga geeyin taasi waa taas halkaas aan kaga gudbaa halkaas ku dhaafi maayo tan xigta ninka la yiraahdo arcas degmada waa degmadaadii dadku waa dadkaaga waxa aad leynayso waxa meesha ku dagaalamayo waxa bad kugu soo ridayo gabigoodu waa tolkaaga waay shalay ayaga wax ka dhigay oo ku yiri halka noo tag maanta markuu lafta gareen yimid ha isku dayin inaad xoog ku joogto lafta gareen isaga xoog lagu keenay wuxuu damcay wax walba inuu xoog ka dhigo sanad xooga inuu ku darsado beelaha malaaqiyo xooga inuu u sameeyo sidoo kale beelaha inuu u sameeyo xildhibaano xoog ah wasiiro xoog ah inuu u sameeyo wixii lafta gareen ahaa xoog gareen buu ka dhigay adiga waxaan ku leeyahay waxa meesha ku la'anaya dadkaaga waa labada dhinac dadkaaga waa haddii aad rabto lafta gareen markuu baxo inaad maaragtahay aad ku joogto leysaannimo aad ku joogto lafta gareen waa baxahe haddii aad rabto inaad leysaannimo ku joogto berdaaliya baydhabo inta u dhaxayda adeer waxaad samaynaysa ka joog adiga dan kuguma jirto dadkaagana dan uguma jirto arrintan waxaan ku leeyahay arcaso waa kugu dheeraatay iska soo afjar ninka la leeyahay cabdimadoobe
ama gar iyo xaniyo qabo oo hoostiisa ku rafo oo iska soo xaal mare ay degmadii sidaa ku joog aysan ahayn tolka gogol u dhig haddii lagu yiraahdo halkaas ka bax iska soco haddii ninka kale laga qabtana hada meeshii adiga ka mas'uula laakiin ha isku dayin inaad xoog ku joogto adeer xoog waxba laguma maamulo hal xabo kuma samaysma xoog waata halka ku dhaafi maayo ninka la leeyahay waxaan rabaa in halka kala hadla saaxiibkay Abdiwahaab Cabdiraxiim waxaan leeyahay saaxiibow dhalinyarada beesha adiga gudoomiye u ah waxa meesha ku baaba'ayo oo degmada Berdaale labada dhinacba la isku dhufanayo waa dhalinyaro ha u fiirin inuu ciidan yahay ha u fiirin inuu maaragtay jabhad yahay oo hubeysan yahay ha u fiirin inuu shacab yahay wuxuu rabaa ha ahaado dhalinyaro adiga ka mas'uul ah arintaas gal odayaasha siyaasadooda ha wada wataan meeshay doonaan kala dhacan laakiin dhalinyarada meesha ku la'anaysa oo meesha lagu baabi'inayo halka gaar adna intaasaan ku leeyahay halkaasaan uga gudbo degmada Berdaale iyo xaaladeeda midda xigta waxaan rabaa rag kabaha lafta gareen noqday inaan meeshaan fariin uga diro kabaha lafta gareen kabaha hadda waa kabihiisa ninka la leeyahay Amiin Madaro meeday nigis Abu Karjiis haddaad rabtaan inaad soo nabaydhaba aad ku joogtaan xariinnimo walla idinka taa oo ma joogaysaan lafta gareen xilkiisa haddoo dhammaana haddaad isaga kaba u ahaanaysaan oo kaba qaad u ahaanaysaan oo aad raacaysaan hadduu guuro aad la guuraysaan waa goonigeeda midda kale haddaad jufo kale sheegateen oo aad rabtaan jufo kale inaad ku joogtaanna hadda derinaa laydin dhigaa laakiin haddaad rabtaan inaad xariinnimo ku joogtaan adeer waa idinka dhammaata ama bib ama boorsaqaad lafta gareen u ahaw adigay ku anfaa laakiin waxaan kuu sheegaa maalinkii September maalintii laga wareejiyo lafta gareen ee wasaaradda arrimaha gudaha ay meesha la wareegto waxaan kuu sheegaa inaad xariinnimo ku joogi karin hadda jufo kale sheegta hadda xariinnimo kuma joogi kartaane hadda jufo kale hadda sheegta taa go'aankeeda waa la gaaro haddii shalay bartaa fadhiday haddii maanta lafta gareen uu wax ku tusay beri bartaad shalay fadhiday baa ku laabanaysaa beri bartaad shalay fadhiday baa ku laabanaysaa September iyo baydhabo inoo tahay waa idin salaamayaa sheergaraya muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro waa mahadsantihiin